بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكبرنا ويديمان كلا. What is a treasury bill? What is a treasury note? And what is a treasury bond? إن la soo saaro warqadaha maaliyadda sida boonka oo kale waxa ay ka mid tahay qaababka ay shirkadaha iyo dawladaha ay ku helaan lacag ay ku socodsiiyaan howlahooda. warqadaha deynta waxaa ka mid ah T-bill, T-notes iyo T-bonds. ogowna maanta warqadaha deynta aan ka hadlayno waxa ay qaas u tahay dawladda dhexe. haddaan ku hormarno treasury bill oo loo soo gaabiyo T-bills waxaan ku qeexi karnaa inay tahay warqad maaliyadeed oo deyn ah midaas oo lagu iibiyo suuqa deymanka ay muddadeedu ka yartahay sanadka. waxaana soo saara warqadda deynta ah dawladda. sidoo kalena dawladda waxa ay ballan qaadaysaa inay deynta ku bixin doonto markii la gaaro muddada lagu cayimay warqadda deynta. aan dhahno tusaale ahaan waxaa ku qoran 31 December 2023. dawladdana waxa ay soo saartaa deynta marka ay u baahato deyn ay muddadeedu gaaban tahay sida inay hesho lacag deyn ah oo ay ku sii bixiso mushaaraadka shaqaalaha oo kale. muddada warqadda maaliyadda ee loo yaqaano T-bills waxa ay noqon kartaa maalmo ilaa intii ku siman sanad. waxaana lagu iibiyaa lacag ka yar midda ku daabacan warqadda maaliyadda. tusaale ahaan aan dhahno warqaddan maaliyadda waxaa ku qoran $1, balse qofka maalgashiga samaynaya waxa uu bixinayaa $997 hadda. markii la gaaro dhammaadka sanadka maalgashtaha waxa uu helayaa $1 oo qofkii maalgashigaa samaystay waxa uga soo xaroonaysa $3 boon waliba. oo haddii $1 aan ka jarno 997 waxa inoo soo baxaysa 3. midaas ayaa laga wadaa boonkan waxaa lagu iibiyey discount. markana aan qeexno qaybta labaad oo ah treasury notes oo loo soo gaabiyo T-notes. waana warqad maaliyadeed oo deyn ah oo ay soo saaraan dawladda. muddadana waa dhexdhexaad oo waxa ay ka badan tahay sanad kuna siman tahay 10 sano. sidoo kalena dawladda waxa ay ballan qaadaysaa inay deynta ku bixin doonto markii la gaaro muddada lagu cadeeyay warqadda deynta. halka qaybta saddexaad ay tahay treasury bonds. waa deyn muddadeedu ay dheer tahay waxa ayna u dhaxaysaa in ka badan 10 sano ilaa 30 sano. mar waliba oo ay muddada deynta dheeraatana dulsaarka deynta wuu bataa. T-bills, T-notes iyo T-bonds dhammaantood waxa ay ka siman yihiin inay yihiin deyn ay soo saartay dawladda dhexe si ay lacag uga deynsato suuqa. deynta dawladda waxa ay ku bixinaysaa dhammaadka muddada lagu qoro warqadda deynta. balse waxa ay ku kala duwan yihiin muddada deynta. T-bills waxa ay ka yartahay sanad halka T-notes ay ka dhaxayso in ka badan sanad kuna siman 10 sano. midda u dambayso ah T-bonds muddada deynta waxa ay ka dhaxaysaa in ka badan 10 sano ilaa 30 sano haddii aanayba ka badan. haddaba mar waliba oo ay muddada deynta dheeraato waxaa sare loo qaadaa dulsaarka halka mar waliba oo ay muddada deynta yaraato dulsaarku u yaraado. balse ay sahlanaato inay maalgashatada ay iska gadi karaan xilligii ay rabaan. midaas ayaa ah highly liquid. haddaan si kale u dhigno mar waliba oo ay muddada deynta yar tahay waxaa sahlan in deynta la gadi karo oo aad lacagtaadii heli kartid inta aanan la gaarin muddada deynta oo waxaa lagu gadaa secondary market. balse haddii muddada ay deynta bislaanayso ay dheer tahay waxaa adkaanaysa inaad iska gadid. xog dheeraada oo ku saabsan financial instruments, financial markets, money market, junk bond and bond holder, face value and market value fadlan ka dhegeyso lifaaqyada hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.